بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku mahadinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala, rabbigeenna na abuuray, na khalqay, asagana dhaqaayo oo na dhaqaalaynayo. Runtii ilbiriqsi aanan ka maarmin waa u mahadnaqaynaa nicmooyinka tirada badan ee ilaahay uu na siiyey subxaanahu wa tacaala. waa uga mahadinaynaa, waxaana weydiisanaynaa isla markaa inuu noo siyaadiyo, innagana uu na waafajiyo inaan ka shukrino nicmooyinka tirada badan. walaalayaal, waqtiga oo aada u kooban, muqadima ama wax hordhac ah kama gaarno. insha allahu kalimadeennii mawduucay ku saabsaneed baan hor u gelaynaa. ciwaanka haddii aad aragteen ama aad culamada ka maqasheen, waxaa weeye sida aad aragteen inaan ka sheekayno qaar kamide dumar ayagoo nool jannada lagu bishaareeyey. in badan baad maqasheen iyadoo laga warramayo dad ayagoo nool jannada lagu bishaareeyey. dadka ayagee way badnaayeen, rag iyo dumarna way lahaayeen. marka dumarkii jannada lagu bishaareeyey, bal qaar kamide wixii aan ka gaarno yaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna waafajiyo baan ka tilmaami doonaa. waxaan marka kaga warramaynaa fadhigaas waqtiga yaroon haysano hooyadeenna khadiija bintu khuwaylid radia allahu canha wa ardaaha. waxaanan hooyadeenna khadiija u dooranay marka koowaad waxay tahay qofkii ugu horreeyey oo asagoo nool janno loogu bishaareeyo oo kamida ummaddii nebi maxamed alayh isalaatu wassalaam. qof ka horreeye ma jiro. cid ayadoo nool oo adduunyada joogto jannada loogu bishaareeyey ayadaa u horreysay. dumar kalena kama horreynin, rag kalena kama horreynin. saasaa marka waxaan u dooranay inaan bal intii ilaahay uu naga karsiiyo aan ka warranno. dadka waa wanaagsan ama dadka susuuban in laga sheekeeyo oo laga warramo. faa'iidooyin badan bay culammada ku sheegeen oo ay ka mid tahay qofka inuu iimaankiisa uu ku siyaadayo. siyaru saalixiin, dadkii waa wanaagsanaa, siiradooda marka laga sheekeeyo qisaskooda waxaa ku ziyaadaa iimaanka. oo culammada markay ka warramayaan iimaanka marna wuu ziyaadaa, marna wuu nusqaamaa. iimaanka daacaduu ku ziyaadaa, gaar ahaan markay culammada tirinayaan waxyaalaha uu ku ziyaado iimaanka waxa ay ku daraana dadkii susuubanaa ee saalixiinta ahaa ilaahay uu ka raali noqday ee in laga sheekeeyo oo la tilmaamo. sababtaas ayaan u jecel lahay inaan ka sheekayno hooyadeenna khadiija wixii ilaahay uu naga garansiiyo, iyo ayadoo ay noogu sugan tahay ku-da-asho oo dadkaas inay yihiin dadka loo baahan yahay, dadka muslimiinta inaan ku da-ano, waddadii ay mareenna aan marno, si marka liibaantii ay gaareen adduunya aakharaba annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo gaarsiiyo. khadiija waxay ka mid tahay ummahaat lmu'miniin, hooyooyinka hooyooyinka mu'miniinta ayay khadiija ka mid tahay. waxaan filayaa hooyo sidaas loo itlaaqo oo mu'miniinta idil inay hooyo u taho la sheego waa un hooyooyinkii xaasaska rasuulka alayh isalaatu wassalaam. oo intii ka soo hartay dad unbay hooyo u tahay gaara, laakiin mu'miniinta idaalkood cidda kale oo hooyo u noqon karto oo la dhihi karo waa hooyadii mu'miniinta waxaa weeye waa xaasaskii rasuulka alayh isalaatu wassalaam u dhaxay. ilaahay baana ku tilmaamay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum. ilaahay wuxuu noo sheegay nabiga inuu ka mudan yahay dadka mu'miniinta naftooda inuu ka mudan yahay, oo naftaada adiga kugu jirto nabigaa kaa mudan. markay culammada ay rabaan inay dadka fahansiiyaan, tusaale ahaan haddaad haysatid shay yar ama biyo ah oo adiga aad u dhimanayso, haddaad cabbi wayso, si aad aragtid nabiga alayh salatu slam oo u baahan asaad siinaysaa, maxaa yeele asaa kaa mudan. annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum. xaasaska rasuulku u dhaxayna
وهويوينka dadka muuminiinta ah marka hooyooyinkaas mid kamid ah ayaan insha Allah taala inta Ilaahay naga garasiyo aan ka sheekeen doonaa Khadija radiyallahu anha magaceeda waa Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay magacaas ay leedahay hooyadeena Khadija radiyallahu anha hooyada ayda dhashay Fatima bint Zaid baa dhahaa waxaa la sheegaa hooyadeena Khadija inay dhalatay ka hor dhalashada Nabiga Cali salaatu wassalaam 15 sano haddii Nabiga uu dhashay sanadkii la jiray caamul fiil ayada waxay ka horeysay caamul fiil 15 sano oo 15 jir bay ahayd waxay ku dhalatay kuna barbaartay magaalada la dhaho Makka al-Mukarrama hooyadeena Khadija bay'adii ay ku barbaartay ama bulshadii ay ku barbaartay waxay ahayd bulsho jaahili ah oo sida aad maqasheen bulsho jaahiliya ku nool oo diin aan aqoonin oo inta badan ay ku yar tahay doorsoonaan inay aysan aqoonin aad maqasheen dulmi badan oo ka dhaxdhici jiray aadooyin xun ay lahaayeen xuquuqda bini'aadamka gaar ahaan dumarka aad loogu ciyaari jiray dumarka ayagoo qaawan ay kacbada marar qaar imaan jireen oo dhawaafi jireen asnaam iyo geeda la caabudi jiray bulsho noocaas ayay ku dhaxalatay Khadija radiyallahu anha laakiin Ilaahay fadligii qofka Ilaahay uu doono inuu hagaajiyo meel kasta uu joogo waa hagaaga waxaana u daliila Nabiga Muuse alayhi salaam waxaad ogtihiin gurigii wuxuu ku barbaaray adduunyada ninkii soo maro ninka ugu xumaa Fircawn bulshadaas marka ayadoo ku dhalatay kuna dhax barbaartay ya haddana waxay noqotay qof ilaa maanta la joogo inta man hataa Nabiga uu guursanin ama yaraanteediiba marka laga sheekaynayo lagu tilmaamo inay ahayd gabdhaha adduunka soo mara gabadhii ugu doorsooneed gabadhii ugu cafiifsaneed ilaa ay bulshadii ku dhaxnooleed ay laqab uga dhigaan ama naanees laqabka waa waxa naaneeska u naqaano ayada magaceeda Khadija baa la dhihi jiray laakiin markii ay hana qaaday bulshadii ay ku nooleedna ay arkeen doorsooneynteeda iyo qiimiga ay leedahay waxay marka laqab uga dhigeen naanees al-taahira tii daahirka ahayd ee cafiifada ahayd ee doorsooneed waxay culimada ay u aanayaan arinta ayada in ay ku tiirsaneed in adeerkeeda Waraqa ibn Nawfal ninka la dhahay jiray caalimka ahaa ee kutubtii ka horeysay kutubka Quraanka ee yaqaanay nin diin le ahaa oo in badan marka tarbiyadeeda iyo wax u sheegeeda aad uga qayb qaatay marka magacaas bay muteysatay magacaasna magac qof walba iska muteysan karo ma aha Ilaahay wuxuu ku sheegay tilmaan noocaas Quraan ku sheegay Maryam bint Imran wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina Maryam bint Imran Ilaahay wuxuu kaga waramay inay ahayd gabar doorsoon runtii doorsoonida gabadha inay doorsoonaato ama dariskeeda ama bulshada ay ku dhaxnool jayna ay ku tilmaamaan inay tahay gabar doorsoon wax la heli karo ma aha wax qof kastaana iska qaadan karo laqabkaas ma aha gabar ka tagtay uma yeelan karta ayadana Khadija markii ay hana qaaday waa la guursaday oo rasuulku loo horeeyay alayhi salaatu wassalaam ila laba guur baa la sheegay inay soo martay sida uu kala horeeyeenba marna ninka la jiray muxuu ahaa Abu Hala uu guursaday Tamimi marna uu guursaday ninka la jiray Atiq ibn Aid al-Makhzumi labadan nin oo sida uu kala horeeyeen waxoogaa aad marar qaar ay kala midba culimada qaar ay hormariyaan almuhim waxa weeye in ay soo guursatay labadan nin caruurna ay u dhashay midna ay laba u dhashay midna ay hal u dhashay Atiq ibn Aid hal bay u dhashay Abu Halana ay laba u dhashay labadabana waxa la sheegaa inay ka geeriyoodeen markii ay ka geeriyoodeen hooyadeena Khadija waxay go'aansatay inay ciyaalkeeda korsato waxaanay ahayd dadka Maka degan dadka ugu ladan dhaqaale ahaan sida aad maqasheen beec mushtar bay ahayd qof ganacsada dhaqaale fara badan bay lahayd waxa la sheegaa marka la isbarbar dhigo dhaqaalihii Maka dadkii hantida maalqabeenka Maka deganaa iyo dhaqaalaha muxuu ahaa ayada ay haysatay inay isku dhigmi jireen
oo kala bar ay iida dhaqaalihii maka ay lahayd. maka bay iska deganeed, way iska shaqaysan jirtay, ciyaalkeedana way kursanin jirtay. waxaa la sheegaa ku xirnaashii ay ku xirneed Waraqa ibnu Nawfal inay wax badan ka faa'iiday, aqoon kororsina ay muxuu ahaa in badan ay la yeelatay. intaba nabiga isbaranin aanay guursanin ka hor in ay riyootay baa la sheegaa waqtiyaha ka mida ay ku riyootay iyadoo gabal ka mida dayaxa inuu gurigeeda aqalkeeda uu kusoo dhexdhacay oo dhabteeda uu kusoo dhacay oo guriga dhan wada iftiimay, taas oo markay Waraqa u sheegtay uu u sheegay in way nabi ay guursan doonto oo nabiga ummadan inay guursan doonto. sidaas la mid ah dhacdooyin kale oo noocaas ah oo in badan intay u bandhigtay Waraqa oo waxyaalo tusinayo nabigii ummadan inuu soo dhow yahay inuu u sheegay. iyadoo marka degan hantideedana ay rag ka shaqaynayaan oo dad shaqaalo badan u joogo, iskana laban dhaqaalo fiicanna haysato, raggii maka deganaana ay in badan ay soo damcayaan ase ayada ay diidayso. yaa goor dambe waxay ka war heshay nabiga calayhi salaatu wassalaam oo asaga naftiisa magaciisa Muhammad uu ahaa sida awowgiisa Cabdulmutalib uu ku magacaabay, aabihii ma nooleen markuu dhalinayay, laakiin naas ahaan ama laqab ahaan loo yaqaanay as-Saadiq al-Amiin ama Muhammad al-Amiin, midkii aaminka ahaa ee amaanada lahaa, runtana sheegi jiray. qofka markuu ganacsi leeyahay in badan waxaa ku imaataa in uu dadka ka iimaan baxo ama dad badan ay xoolihiisa ka dhacaan. waxay maqashay markaa niilka dhalinyarada ah oo aaminka ah, amaanada leh, rasuulka calayhi salaatu wassalaam waagaas waad garan kartaa bangi ma jirin lacag la dhigto, laakiin reer maka asagay u dhiibani jireen wixii qaali ah ama muxuu ahaa lacag iyo wixii lamid ah asagaa loo dhiiban jiray oo loo keysan jiray. markii ay maqashay ayaa waxay maaragtay ay ka codsatay inuu oga shaqeeyo hantideeda, wixii ay ragga siin jirtay wax labalaabkiisana ay siiso. rasuulka calayhi salaatu wassalaam adeerkiis buu u bandhigay arrintii ideed buu kala shuurayay, adeerkiisana waa ku waafaqay, waanay heshiiyeen inuu xoolaha oga shaqeeyo. safarkii ugu horreeyay buu rasuulka galay calayhi salaatu wassalaam. dadka ganacsatada maka waaga joogay laba meel bay isticmaali jireen sida ilaahay uu quraanka ku sheegay suuratu quraysh ama ilaaf oo ku sheegay rihlata ashitaa'i was-sayf. kolna waxay u safran jireen xagga Shaam, dhulka la isku dhaho, dhulka hadda maaragtay dawladahan Urdun iyo Syria iyo Falastiin iyo marka caradaas ayay u safran jireen, marna carada Yaman ayay marka u safran jireen oo xaggaas ayaa waxay u ahayd ila dhaqaale. safarkii u horreeyay rasuulka uu galay calayhi salaatu wassalaam waxa uu ku aaday Shaam, waxaana hor u sii qaaday ganacsigii ay Khadiija iska lahayd inuu u soo iibiyo. markuu Shaam tagay badeecadii uu qaaday si fiican buu u iibiyey, beecaad u fiican oo waagii hore aysan ku heli jirin ayay marka ayuu ugu iibiyey. waxaa hadda lala sheegaa sidii ay samayni jireen qolooyinkii asaga ka horreeyay si ka duwan uu sameeyey, oo markii uu xoolihii uu gacanta ku waday badeecadii u iibiyey in lacagtii oo caddaana uusan la soo noqonin, laakiin uu alaab kale oo maka looga baahnaa inta uu soo iibiyey inuu maka keenay. marka wuxuu faa'iiday laba jeer baan marka safarkii asaga ahaa uu faa'iiday, taas oo marka Khadiija kalsoonideedii kor u sii qaaday. safarka waxaa rasuulka ku heliyay calayhi salaatu wassalaam wiil Khadiija u shaqayn jiray oo la dhihi jiray Maysara. markii ay ka wareysatayna wax badan oo runtii la yaab ah ayuu u sheegay oo mucjizo ah tusinayo, iyo wax Maysara naftiisa uu ku jeclaaday oo ah habdhaqankii rasuulku u muujiyay calayhi salaatu wassalaam. oo Maysara wuxuu ahaa dadka lagu magacaab jiray khaadim ama adeege ama adoon midka tiraadidba. qolooyinkii hore oo marka u shaqayn jiray hooyadeena Khadiija mucaamalo fiican muusan kala kulmi jirin, laakiin rasuulka calayhi salaatu wassalaam kama dhigin qof noocaas ah, wuxuu ka dhigay qof ay isku mid yihiin oo shaqada mid kasta dhinac uu ka gelayo, hadday noqoto wax in la kariyo ama biyo in la soo dhaamiyo ama muxuu ahaa saasa marka. iyo arrin kale oo sii dheer oo mucjizo ah saan sheegnay in uu arkay rasuulka calayhi salaatu wassalaam oo ilaahay uu ku haraynayo
daruur ama malaa'ig ilaahay u soo diray ay hareynayso oo oraxda ma aragtay ay ka ilaalinayso iyo waliba nin raahib ah oo qolooyinkii diimankii hore ay haystay muxuu ahaa naasuura la dhihi jiray inuu u sheegay markuu tilmaamihii uu ku arkay rasuulka alayhi salaatu wasalaam oo markuu basra tagay oo carradaas u tagay in markaa inuu u sheegay inuu yahay nabiga ummaddan oo tilmaamo badan oo tusinayo inuu ku arkay ayuu markaa arrimihii oo dhan buu markaa uga warbixiyey khadiija radi allahu canha hooyadeena khadiija oo marka horeba ammaanadii rasuulka jeclaatay ayaa haddana waxaa kusii zaa'id noqday kalsoonidii ay u qabtay waxaana markaa arrintii ay keentay inay guur ay u bandhigto taasna waxay ka mid tahay cibaadada gaar ahaan gabadha marka ay diinteeda qiimeynayso in marka qofkaas guurna ay doonayso haddii ay aragto qof noocaas oo ammaano leh oo la isku hallayni karo inay marka guur u bandhigto waxba dhibaato ma laha gaar ahaan khadiijo oo kale oo hadda islaan hor usoo guursatay ah oo gabadha hadday markaa hor leedahay waa dhici kartaa inay ku dhiiranin khadiija marka waxay go-aansatay inay rasuulka guur u bandhigto calayhi salaatu wassalaam waxay isticmaashay gabar ay saaxiibo ahaayeen oo nafiisa la dhihi jiray ayay isticmaashay gabadhii bay u bandhigtay inay fariinta guurka ay nabiga ay u geyso gabadhii baa marka baxday rasuulka ay u tagtay calayhi salaatu wassalaam waxaanay weydiisay waxay tiraahday maxaad u guursanaynin maad guursatid markaasuu yidhahday waxa aan ku guursado hadda xaalka gacan iguma jiro hadda saacaddan waxa aan ku guursado haddee muxuu ahaa gacan kuma hayo markaasa waxay tiraahday haddii aad lagu siiyo ama lagu keeno guur aan waxba kaaga baxaynin adigaba laga yaabo lagu kharash garaynaayo qofkana uu yahay aan ku wado qof wanaagsan oo muxuu ahaa aada u qiimi badan oo dhinac kasta waxa lagu doorto guur oo dhanba ay ku idishahay marka rasuulku wuxuu yidhi yaaway markaasa waxay tiri waa khadiija waxaa la sheegay rasuulku inuu aad oo la yaabay arrintaa maxaa yeele muusan filaynin in khadiija oo dadkii maka deganaa qofka ugu taajirsan ahaa dad badan oo maka deganaa oo maalqabeenna ay damci jireen oo guur ugu imaan jireen haddana diidi jirtay in asagoo faramadoow ay damcayso dee halkaas kolley waxaa laga qaadan karaa macnaha guurka uu leeyahay inaysan dhaqaalo uusan ahayn guur in lagu raadiyo ay tahay marka qofka ay gabadha guursanayso inuu yahay qof ammaano leh qof muxuu ahaa lagu aamini karo gabadha ayada lagu aamini karo intaan wax kale oo dhan ba la gaarin in horta lagu aamini karo rasuulka waa aqbalay waana isarkay khadiija radi allahu canha kadibna adeerkii ayuu u bandhigay oo nabiga aabihii ma nooleen adeerkii abu aalib oo soo koriyay buu u sheegay adeerkiina waa ku raacay kadibna waa loo doonay oo nabiga alayh isalatu wasalaam adeeradii baa usoo dooneen oo abu aalib uu hogaaminayo khadiija aabbaheed ma nooleen dagaal markaa ka horreeya dhacay oo xarbulfijaar inuu ahaa baan jeclahay ayaa aabbaheed lagu dilay quwayle laakiin adeerkeeda camr ibnu asad baa noolaa marka adeerkeedii baa markaa la weydiistay iyo waraqa naftiis oo asaga naftii in adeerkeeda ahaa oo caalimka ahaa oo asaga naftii markaa weli aan geeriyoonin oo nool waxaa markaa abu aalib runtii ay kutubta qorayaan siirada qaabku u dalbay markuu doonayay rasuulka alayh salatu salaam oo gabadha khadiija uu doonayay khudba uu akriyey oo waxaa jirta khudbat lxaaja wax la dhaho markaa dan aad leedahay khudbooyin xaaja oo muraad aad leedahay inaad maaragtay aad ilaahay ku mahadiso oo waxyaala marka aad la imaato noocaas oo kale oo salliga rasuulka alayh salatu salaam marka annaga haddii aan dad muslimiin nahay marka abu aalib markii la fariistay wuxuu ka bilaabay ilahay inuu ku mahadiyo aad buu ilaahay ugu mahadiyey wuxuuna ilaahay uga mahadiyey in uu gacanta u geliyey xaramka oo ay yihiin dadka xaramka ilaahay ilaaliya in uu ka beeray nabi ibraahim calayhi الsalaam iyo nabi ismaaciil oo dhalasho ahaan ay gelayaan oo quraysh ay gelayso carabta saddex baa loo qaybiyaa qaybta marka rasuulku ka dhashay alayh isalaatu wasalaam oo alcarab almustacriba loo yaqaano waxay gashaa ay ku abtirsataa nabi ismaaciil ilaa nabi ibraahim calayhim assalaam kadib wuxuu yidhaahday markuu ilaahay ku mahadiyey ayaa wuxuu yidhaahday wiilkan moxamed ah walaalkay u dhalay waa wiil haddii loo barbar dhigo wiilasha ku nool maka aan loo helaynin wiil asagoo kale ah wiil lamide aanan la helaynin oo hadday caqli tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa deeqsinimo iyo hadday tahay ammaano wiil asag lamide
unuusan jirin keli laakiin wuxuu yidhaahday waxoogaa waxaan qabnaa dhaliisha aan qabna waxaa weeye waa wiil aan hanti haysanin intaasuu marka Abu Talib sheegay waliba wuxuu sii raaciyay hantidana wuxuu yidhaahday waa wax marna ku imaani marna kaa tegaya laakiin qofka gobnimada Ilaahay ku abuuray kama tagto qabriga uu la gelayaa ama hantida wuxuu yiraahdaa waa sida har subxeed iyo har galbeed marna way imaanaysaa marna way tagaysaa kii shalay taajirka ahaa ayaa maanta gacantiisa dhulku dhacaysa ku shalay faramadoobaana kor buu soo kacaya mar asoo sii wada hadalka wuxuu yiraahday saas ay tahay wuxuu maanta Muhammad uu doonayaa oo u rabnaa gabadha Khadija la dhaho oo ayada nafteedu amaan uu kala dul dhacay Abu Talib waad u amaanay waxa uu ku amaanayana oo aysan ahayn wax la iska doonayo wax dhaba oo lagu yaqaan reema ka dhan ay ahayd Abu Talib wuxuu yiraahday wax Allah li wixii mahar ah in uu asaga bixinayo hayla maharka qaabka hadda Soomaalida ay u bixiso iyo ummadaha islaamka sida hadda u bixiyaan xaaladan iyo waaga si loo bixin jiraba annaga waa ka duwanahay maharka waxa la rabaa fiican in hor laga bixiyo oo gabadha goosh lagu doonaya ama lagu nikaaxayaba in marka maharkeedii lagu bixiyo oo hadda sidan dhaqan Soomaaliga iska caadi noqotay in deen gabdhaha lagu guursado deen lagu dhaqo waa had dhaqan runtii aad iskaga foolxun walow aysan qasab ahayn laakiin haddana sida fiican baan sheegaynaa sida fiican kadib hadalkii waxa uu ku soo wareegay adeeradii Khadija radhiyallahu anha ayagana way hadleen adeerkada Amr ibn Asad iyo waliba waraqa way hadleen waana bixiyeen Khadija radhiyallahu anha sida marka qiimiga badan ayaa loo doonay ayadoo bulshada jaahiliya ay ahayd bulshada ya haddana Ilaahay meeshu wax ka wado ama cid rabo Ilaahay inuu doorto hadda waxa weeye wadada fiican ama tubta toosan buu markasta waafajinaya hatta guurkii rasuulka isku guursadeen Khadija guur marka sida u qurux badan oo sharafkaas oo gambar lagu soo doonay dhaqanka Soomaalida waagi hore odayaasha waxay dhihi jireen gabadha gambar ayaa lagu bixiyay طبعا waxa jiri jiray waxyaalaha in huwa anaga meesha ka aqaanay hormo baan u naqaana gabadha in la baxo oo kale sidaas marka loo soo doonay sida sharafta lena waa lagu bixiyay waxa la sheegay Khadija mar alla markii la bixiyay oo ay noqotay in arooskii iyo hawlihii la galo in ay aragtay rasuulka waxoogaa murugtana ay sababtay maadaama nin guursanay uu yahay asxaab badanna uu leeyahay saaxiiba iyo dad ku xiran liisaga baahan yahay waxoogaa in la farxo gacantiisana waxba ku jirin in arintaas ay waxoogaa ay u keentay in marka uu la murugoodo hooyadeena Khadija marka oo runtii maal qabeen ahayd ayaa waxay fasax u siisay xoolaheedu inuu dhaxgalo oo wax alla wuxuu kaga baahan yahay haday ahaan lahayd wixii la qalan lahaa iyo haday ahaan lahayd aaladii wixii la karin lahaaba inuu marka xoolaha kala soo dhaxbo taasoo marka rasuulka aad ugu farxay oo culeyskii ay ka qaaday xoolaha inkastoo sida hadda annaga aan u aragno ay laga fiican yahay haddana waa waxaan laga maarmin oo Ilaahay markuu xoolaha tilmaamayo suuratu nisaa wuxuu yiraahday walaa tusufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyaman wa qu'udan soo saasmeen marka xoolaha waa laf dhabarka qofka bini aadamku way isaga baahan yahay sida hadda annaga aan u aragno in qalbiga la gashado u baaxun laakiin inay jeebka ku ekaadaan oo qalbiga ay ku gelin oo baa loo baahan yahay culimada waxa ka maqlay qaar kamida xoolaha waa uu laba shay inaad ku dambaxdo inaad ku deembaxdo wax kale hadda oo maaragtay ma siilaha waa uu dambax iyo deembax way kadib marka sidaas sharafta leebu ku dhacay rasuulka kaleey salaatu salaam guurkiisa hooyadeena Khadija uu ku guursaday waxaana la sheegaa marka ay guursanayay daahan in ay kala duwanaayeen oo hooyadeena Khadija ay daahan ay ka weyneed ilaa 40 ayaa la sheegaa sida xooga badan aqwaal kale waa jiraan 40 sano baa jirtay radiyallahu anha wa ardaaha asagana 25 ayuu marka ayuu jiray laakiin sharafta qofka bini aadamka da ma aha sharafta ayaa qofka wax ka dhigi karta qiimiga uu leeyahay iyo sharaftiisa wax ka dhigi karta da wax kama dhigto waa la isguursaday rasuulka kaleey salaatu wassalaam muddo kadibna hooyadeena Khadija way ureysatay Qaasim wiil uu bixiye ayay dhashay Qaasim
ayay dhashay wiilkii la dhihi jiray oo sida hadda annagaan ku soconno asagaan curad aan ka dhigaynaa asaa curad ahaa asagay dhashay markii ay dhashayna wuxuu u bixiyey qaasim buu u bixiyey qaasim waa qaasim wey oo miim uu u dambeeyo ee qaasin ma aha sida soomaalida ay dhahdo qaasim markuu dhashay rasuulka wuxuu noqday aabbo buu noqday waxaa uu yeeshtay wax la dhaho kunyada carabta aad u taqaanaa waa in lagugu magac daro ubadka adigaa dhashay hadday gabar tahayna umu caaisha lagu dhaho ama abu cabdillaahi lagu dhaho haddaad muxuu ahaa nin tahay rasuulka markaa calayh isalaatu wasalaam oo shalay moxamed magaciisa ahaa laqabkiisa manaaneystiisana amiin iyo saadiq ahaa maanta waxaa usoo ziyaaday sharaf kalay in marka uu aabbo noqday oo kunya uu yeeshtay abulqaasim ayaa loo bixiyey laakiin qaasim ma daahin marka uu 2 sano ku dhow yahay waa geeriyooday tii rabbi baa u timid marka uu geeriyoonayo hooyadeena khadiija uu nuugayay soo jaqayo ama nuugayo buu geeriyooday waxaa la sheegaa inay khadiija radiyallahu anha iyo rasuulkaba ay aad ula murugoodeen ilaa khadiija ay ka tamaniso in inta uu naaska ka go'ayo ilaahay uu u dayni lahaa oo markii ay qabatay xiskintii ama caanihii ama listii ay siin jirtay qaasim oo asagii nuug lahaana uusan joogin ayay markaa calaacashay ayadoo dhahayso waxaan jeclaan lahaa inuu rabbigayga ii daayo ilaa uu marka naaska ka guro ayay marka ku calaacashay nabiga oo dareemay waxa haayo oo xanuuna waxayna waa dareemi karnaa ubadka sida uu yahay qaar ahaan hooyada markay tahay hooyo gob ah oo hooyadeena khadiija oo kale sida marka xanuunka ay leedahay marka nabiga oo arkay ayaa marka wuxuu yiraahday wuxuu ilaahay uu siiyay wiilkaada yaraa qaasim ilaahay wuxuu siiyay jannada ka siiyay mid ku nuujisa mid jannada ku nuujisa ayuu ilaahay ku siiyay jannada mid nuujisa ayuu siiyay haddii aad rabtidna waxaan ku maqashin karaa shaqadha macnaha jaqida uu jaqaayo ama nuugmada uu nuugayo shaqarteeda haddaad rabtidna waan ku maqashinayaa hooyadeena khadiija oo shaki aan ka qabin hadalka rasuulka waxay tiri calayhi salaatu wasalaam uma baahni inaad i maqashiiso oo sidaas baan maaragtay ku rumaysanayaa xoogaa kadib haddana way uur qaaday hooyadeena khadiija waxay dhashay zaynab radiyallahu canha wa ardaaha ayay dhashay kadibna haddana waxay dhashay ruqaya haddana waxaa dhalatay umu kulthum haddana waxaa dhalatay faatima haddana waxaa dhashay cabdullaahi oo asagana laqab looga dhigo atayib aldaahir sidaas aan marka annaga ayaan maraynaa carruurta rasuulka marka da-dooda laga warramayo waa laga yaabaa intaasoo qool inay ku jiraan laakiin annaga halkaas ayaan markaa maraynaa inuu qaasim u weynaa zaynabna ay ku xigtay muxuu ahaa ruqaya ay ku xigtay umu kulthum ay ku xigtay faatima ay maaragtay ku xigtay muxuu ahaa cabdullaahi uu u yaraa saasaan maraynaa oo cabdullaahi markuu dhalinayo rasuulka inuu nabi ahaa saa darteed baa atayib aldaahir laqab looga dhigay carruurta marka rasuulka ayadaa dhashay khadiija marka laga reebo hal wiil oo ibraahim la dhaho inta kale ayadaa dhashay 7 carruur buu lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam 4 dumara iyo 3 wiil raga marka 6 ka mid ah khadiija baa dhashay qaasim waan kasoo sheekaynay asoo yar buu maaragtay ayuu xijaabtay zaynabna way guursatay waanay islaamtay oo way soo gaartay ayada iyo gabdhaha intooda kaleba ruqaya iyo umu kulthum iyo faatima intaba marka way islaameen xoogaa waqtiga ayaa iska yar laakiin waxaa ficnaan lahayd inaan ayaga naftooda aanan ka tilaafsanin oo wax yar aan ka tilmaanno nabiga calayh isalaatu wasalaam ama intaaban ayaga aanan tilmaamin markii rasuulka uu gaaray da afartanaad 40 markuu gaaray hooyadeena khadiijana ay gaartay 55 sano ayaa nabiga wuxuu bilaabay in marka uu ka tago meeshaas marka bulshadaas ku dhex noolaa inuu in badan ka dhex baxo oo qaaru xiraa jabal nuur buurta la dhaho inuu halkaa tago asagoo ilaahay ku caabudaya cibaadadii uu sameynayay culimada markay isweydiiyeen waxay yiraahdeen tafakkur bay ahayd marka wax lagu soo dejiyay oo soon iyo salaada ma jirin laakiin tafakkur inuu fikiro
oo makhluuqan ilaahay uu sameeyey uu ku waansaqaato ayuu marka samayni jiray oo inay waxaan wax iska ahaaday uusan ahayn tafakurkana waa cibaado weeye waliba culimadu waxay yidhahdeen waa cibaado aad u weyn inaad ku cibro qaadato oo aad ku fikirto makhluuqan ilaahay uu sameeyey cirkan iyo dhulkan iyo nidaamkan dhisan sidan u socdo oo raxdan halka ka soo bixi halkan u dhacaysa dayaxan marna mugdiyeyni marna ana maamul socdo oo dhisan inuu yahay inaad marka ku cibro qaadato halkaas bay marka sahayb buu qaadan jiray muddo buu ku maqnaan jiray hadday bil tahay iyo hadday beriyo tahay markay sahayda go'dana intuu soo laabto ayuu markaa imaani jiray haddana sahay kale qaadan jiray ama hooyadeena khadiija baaba u geyni jirtay sahayda asagoo halkii ku sugan ayaa waxaa u yimid malakul jibriil calayhi salaam oo ilaahay uu soo diray si ay markaa nabinimadii ugu bilaabato malakul jibriil markuu u yimidna waa kii yidhaahday aqri oo malakul jibriil marka wuxuu waday qaybo ka mida suuratu iqra markaasuu rasuulku u yimid wuxuu yidhaahday aqri nabigana wuxuu dhahayay aniga wax ma aqriyo mucjizada rasuulka waxaa ka mid ah calayhi salaatu wassalaam inuusan waxna qori jirin waxna aqrin jirin mucjizadiisay ka mid tahay ilaahayna qur-aanku wuxuu ku yidhaahday wamaa kunta tatluu min qablihi min kitaabin walaa takhutuhu biyamiinika ida lartaaba almubtiluun wax maadan qori jirin maanad aqrin jirin qur-aanka ka hor haddaad ahaan lahayd mid wax qora oo qoraa ahaan lahayd mid wax aqriya ahaan lahayd kuwa xaqa diida waa shakin lahaayeen waxay dhihi lahaayeen waagii horeba nin qoraa buu ahaa waxna waa qori jiray waxna waa aqrin jiray laakiin nabi moxamed calayh isalaatu wassalaam waxna ma qori jirin waxna ma aqrin jirin ummi buu ahaa markuu u baahdo inuu wax uu qoro wuxuu u yeehan jiray sayid cali iyo rag saxaabada ka mida uu dhihi jiray kaalii qoro waa midday culimmada yidhaahdaan qofka inuu waxna qorin waxna aqrinin ceeb bay ku tahay marka laga reebo nabiga tiisa calayh isalaatu wassalaam ammaan bay u tahay mucjizo weeye waa mucjiz shay mucjiz oo sida aan sheegnay kuwii markii ogaa aan wax qoraynin waxna aqrinaynin diiday hadday marka horeba inuu wax qorayo ogaan lahaayeen ama arki lahaayeen hadde markaa qiil bay u heli lahaayeen marka ilaahay baa ugu talagalay mucjiza ayaa yahay marka rasuulku wuxuu yidhi alayh isalaatu wassalaam aniga waxba ma aqriye maa ana biqaari waa kaad maqasheen markuu dhowr jeer ku celiyey oo malakul jibriil waxoogaa uu intuu qabtay kuleetig iyo markaa wixii maaragtay uu waxoogaa usaa u qabtay ayaa kadibna marka uu u meeriyeyoo suuratu iqra 5 aayadood u horay iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra warabuka alakram alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam aayadahaasaa marka ayuu marka u meeriyey oo soo degay oo aayadii u horreeyay qur-aanka kariimka ee soo dego ahaa rasuulka alayh isalatu wasalaam markii uu ka tagay malakul jibriil uu iska soo baxay isagoo aad u murugsan buu maaragtay yuu soo tagay oo aad u baqay kadibna khadiija ayuu u yimid radia allahu canha waardaaha asoo dhahayo zammiluni oo macnaheedu uu yahay iddada marka iddadadan culimmadu waxay yidhahdeen ummad kasta dhaqan bay leedahay waxaa laga yaabaa in dhaqan ay ahayd markuu qofka uu naxo ama uu argagaxo in la dedo inay dhaqan ahaan jirta baa dhici karta marka asoo dhahay zammiluni ma muxuu ahaa ayuu markaa yimid khadiijana way deday kadib markii waxoogaa uu degay oo wixii cabsidii ay ka baxday ayay wareysatay markaasuu uga warramay wuxuu yidhi waxaas iyo waxaabaa i qabsaday ilaa aan naftaydaba u baqa xataa khashiitu calaa nafsi khadiija marka radia allahu canha oo runtii qof aad u qiimi badan ahayd caqli badan lahayd ayaa dejisay oo tiraaday ilaahay baa ku dhaartee muxuu ahaa ha cabsanin oo ha murugoonin ilaahay baa ku dhaartee ilaahay marna kuma hoojinayo garabkaada kama baxayo wallaahi laa yukhzika allahu abada waa runtii hadal la yaab la weeye khadiija waxay tirahdee weligaa naftaada ha u baqin markuu yidhi naftaydaan u baqay marna naftaada ha u baqin maxaa yeelay ilaah baan ku dhaartay marna ilaahay kuma hoojinayo laa yukhzika allahu abada hoojinta waxaa weeye qofka oo garabkiisa aad ka baxdo marka ilaahay marna garabkaada kama baxayo kuma garab tiraayo waxba ha murugoonin kadib waxay u sheegtay tilmaamo uu leeyahay sababta ay saa u tiri bay u sheegtay waxay tiri innaka latasilu raxim waxaad tahaa mid qaraabadaad xiriirisaa
qof qaraabada xiriiriya ayaa tahay waxaa tahay qof martida suura oo martida aan rida iyo muxuu albaabka aan ka xiranin oo martida suura waxaa tahay ayay tiray qofka muxuu ahaa aan shaqaysani karin sida dadka xibnahooda ay kala maqan yihiin oo kale qofkaas oo kale qof dhaqaale ah oo biil siiya ayaa tahay waxaa kaloo tiray runna waad sheegtaa waxaa kaloo tiray qofka musiibada ku dhacday ku habsatay oo xoolihii ay ka dhamaadeen ama guriga ka gubtayna waad u gargaartaa marka tilmaamo dhowr ah oo noocaas ay sheegtay marka waxay fahantay caqligeeda in qofka tilmaamahaas iska leh ilaahayna u garab tiraynin waa marka runtii wax la yaab leh oo qof walba oo muslim inuu barto oo rabo ilaahay inuu garabkiisa ka bixin inuu tilmaamahaas uu bal isku day un wax ka muxuu ahaa uu naftiisa kaga dabaqo marka waxay tiri tilmaamaha baad leedahay qof tilmaamaha iska lehna ilaahay subxaanahu wa tacaala ma garab tiro intaa keli kumaanay daynin haddana way waday ninkii odayga ahaa ee waraqa ibnu Nawfal la dhihi jiray ayay u geesay oo diintii horey kitaabadii horey wax ka haystay oo wax ka yaqaanay marka waxay tiraahday bal waraqow bal waxaad dhagaysataa in adeerka waxa uu sheegayo mar Allah markuu rasuulka u warramay alayhi salaatu wassalaam wixii uu la kulmay ayaa waraqa wuxuu ku dhahay waxa ku yimid waa naamuus weeye khayr wadahi weeye uu imaan jiray nabi Muusa iyo nabi Ciisa alayhi assalaam waxaana tahay nabiga ummadan ayaana tahay waxaad tahay nabiyu hadhihi al-umma waxa ku yimidna waa khayr wadihi jibriil alayhi salaam wayaan marka wuxuu u sheegay inuu yahay nabi inuu yahay ayuu sheegay waraqa ibnu Nawfal oo runtii waayeel ahaa waliba indhala ayaa iska calaalay wuxuu yiraahday waxa ii fiicnaan lahayd in aan joogo oo noolaado waliba nin dhalin yar oo da'yar aan ahaado maalinka ay dadkaada ku dhibi doonaan oo ku saari doonaan oo muxuu ahaa ay ku takoori doonaan rasuulka oo aad u yaaban oo ogaa in tolkiisa aad u jecel yihiin oo Muhammad al-Amin ay wala baxeen صادق الله بحي أي أدو يا بوحير هدي ما تلقي جميع يدبي دونا ويبيحني دونا ورقة وحير هدي ها قف كستا أو لي ميت واحد هذيك التي ميت والله بيبا أو نبيا شواد ما قشين سيدا لو دي بيجري قف كستا أو مركا وناجا ومضى كشقيا أما حق وضنا والله بيبا هذيك ولبا جارها النبي باتهاي والله ودي بدونا وحقيقي فعنا له مالك أي تلقى هذا كوب بحنايان inaan marka joogo haddaan joog lahaa anigoo waliba dhalinyaro ah waa ku gargaar lahaa garab baan ku siin lahaa laakiin waraqa ma sii noolaanin muddo kadib waa uu geeriyooday rasuulka alayhi salaatu wassalaam dacwadiisii halkaas ayay kasii socotay caruurtiisana caruurta hadda aan sheegnay bay ahaayeen waanay hana qaadeen marka ayade qaarkoodana waabay doonaayeen qaarna reer ay lahaayeen sida Zaynab oo kale waxay maaragtay u deganeed Abu al-Aas inuu Rabiic in la dhaho ay u deganeed oo ilma habreed ay ahaayeen Ruqayya iyo Kulthumna laba wiil oo Abu Lahab uu dhalay oo Utba iyo Utayba la kala dhihi jiray ayagana u deganayeen ama u doonayeen Fatima umma markaas yareed oo wali aanan guursanin mar Allah markii nabiga alayhi salaatu wassalaam ilaahay uu nabi ka dhigay dhibkii baa ku bilowday waraqa uu tilmaamayay dadkii aad u dhibay waxa kamid ah adeerkiisa Abu Talib ilaa markii dambe Qur'aan uu ku soo degay Abu Talib suuratu Masad ama tabbat yada abi lahab wa tab mar alla markuu Qur'aanka soo degay Abu Lahab uu dhageystay wuxuu faray labadii wiil uu dhalay inay gabdhihii rasuulka ay furaan alayhi salaatu wassalaam maxay dhibaatadii loo geystay rasuulka meel kasta way taabatay in hatta gabdhihiisii lagu soo furay asagoo oo la rabo in qalbigiisa lagu dhaawaco laakiin nabiga aad buu ugu farxay in ilaahay uga soo fakiyay aad buu ugu farxay gabdhihiisa uu soo dhaweystay waxa la sheegaa hatta Zaynab ninkii qabay Abu al-Aas ibn Rabiic in loo tagay oo Quraysh ay u tagtay aana yiraahdeen iska fur gabadhan Muhammad uu dhalay waxaana ku guurinaynaa gabdhaha Quraysh mid alla midkii aad ka caashaqdo xoolaha iyo qarashkana anaga bixinaynaa laakiin rasuulka alayhi salaatu wassalaam waa ka diiday waxaana uu sheegay gabar Zaynab lamida inaanay Maka aysan ku nooleen oo marna uu furaynin oo saas ayay mowqifkaas u qaatay waxa marka dhacday
muxuu ahaa rasuulka marka in uu dhibka ku bilowday waxa marka uu garab ka helayo oo markaas dhinac kasta ka taageeraya waxay noqotay hooyadeena Khadiija radiyallahu anha oo hanti badan lahayd dhibkii maalin kasta hadduu uu meel marayay waxaa markii dambe hataa uu gaaray in cunaqabateen lagu soo rogo reer bani Hashim qoyskii jilibkii rasuulka ka dhashay alayhi salaatu wassalaam reer bani Hashim la dhihi jiray in cunaqabateen lagu soo rogo oo la yiraahdo waxba yaan laga iibsanin waxna yaan muxuu ahaa loo iibgeynin ayaga waxa ay keenaan oo badeecanayaan laga gadanin badeecanayaan yaan loo geynin yaan laga guursanin yaan loo guurinin 3 sano ayay marka meel gol Shucbu Abi Talib la dhaho ayay marka go'doon ku ahaayeen hooyadeena Khadiija radiyallahu anha ayada abtirahan ma marto bani Hashim ma gasho waxa laakiin la go'doomiyay waa reer bani Hashim laakiin ma aysan dhihin aniga bani Hashim kuma jiri shalay haddaan israbnay maanta dhibaato imaatay dhibka kulama qaybsan kare idhaaf ma aysan dhihin laakiin waxay go'aansatay inay nabiga dhibka la qaybsato go'doonkii way la gashay halkii bay kula jirtay ayaga oo muxuu ahaa reer bani Hashima wixii la cunay meesha inta la joogana wuxuu ahaaba wixii Khadiija iskala radiyallahu anha ilaa markii dambe ay markaa ay ka dhamaadaanba oo wixii la qabiil dhan oo hal qof dhaqaalihiisa hadii uu iska dhamaaday 3 sano markii la cunayay wixii waa dhamaaday 3 sano kadib ma marka Ilaahay imtixaankii iyo dhibaatadii marka uu ka qaaday oo cunaqabateenkii Ilaahay uu ka qaaday cunaqabateenkii markii laga soo baxay Khadiija radiyallahu anha wax badan ma aysan nooleen way geeriyootay radiyallahu anha wa ardaaha markuu rasuulka uu ahaa alayhi salaatu wassalaam ilaa 10 sano markuu nabi ahaa ayay geeriyootay sanadkii 10aad oo bicsada rasuulka inta la soo diray iyadoo da'deeda ay tahay 60 iyo muxuu ahaa 5 sano iyadoo jirto ayay geeriyootay dhabtii rasuulka alayhi salaatu wassalaam ayay ku nafbaxday asaga ayaana qabriga iilka dhigay dadka uu rasuulka iilka dhigay oo qabrigooda uu galay waa yar yihiin dad fara ku tiris way ilaa 3 meelahaas la gaarsiiyaa Khadiija baa kamid ah radiyallahu anha asaga ayaa madaxeedii qabrigii ama ilkii ayuu dhigay way waxa marka nabiga u bilaabatay nolol cusub oo runtii tii hore ka sii adag haddii shalay dhibkii lagu hayay ee Khadiija garab siinaysay sidaas la mid ah isla sanadkaas waxa geeriyooday adeerkiisa Abu Talib oo asaga naftiis aad u kaalmeyn jiray sanadka marka rasuulka aad u murugooday ilaa looga bixiyay sanadkii murugada ama aamul huzni ayaa loo bixiyay waxa marka arkeen saxaabadii joogay rasuulka rumeeyay maka joogay oo ayaga naftood dhib fara badan u haystay ayaa marka waxay arkeen rasuulka dhibaatadii ku timid Khadiija oo geeriyootay adeerkiisa oo geeriyooday in marka asagoo daa haddana uu ku laabtay in uu iskaabulo u noqdo caruur rajooyinna u haysto waxay marka la sheegaa inay u soo bandhigeen inuu guursado rasuulka alayhi salaam oo gabadha la dhaho Khawla saxaabiyada suuratul mujaadala ay ku soo degtay qasami Allah in rasuulku u timid ay u soo bandhigtay inuu guursado ay tiraahday gabar aad rabto iyo hadaad garoob aad rabto ba labadaba way joogaan hadii aad garoob rabtidna Sawda ayaa joogtaa bintu Zam'a radiyallahu anha hadaad gabar rabtana Aisha oo hadda soo baxday ayaa joogtaa u bandhigtay waxa marka la sheegaa markii guurkaas ay u soo bandhigtay Khadiija in uu muxuu ahaa rasuulka oo markiiba hor u ka yeelin asoo dhahayo ma waxa jira qof Khadiija lamid ah Khawla markay u soo bandhigtay ra'yigaas xala sheegaa asagoo aad saameyn ugu yeelatay geerida Khadiija iyo kalgacalkii uu hayay iyo meesha ay la soo martay iyo dhibaatadii ay la qaybsatay inuu yiraahday ma la helayaa qof Khadiija oo kale dunida ma joogtaa markii dambe waxa lagu qanciyay rasuulka inuu guursado alayhi salaatu wassalaam waxaana uu guursaday ummul mu'miniin Sawda bintu Zam'a hooyadeena ayuu guursaday oo marka ayada garoob ahayd ayuu guursaday kullay haddana xaasaskii faraha badnaa ee dambe baa ugu xigay Aisha baa ku xigi doonta oo muxuu ah idana Madiina uu ku guursani doonaa rasuulka alayhi salaatu wassalaam bacda al-hijra Allahu musta'an halkaas markaan joogno waxaan marka rabnaa inaan aad u xasuusano saameyntii marka ay hooyadeena Khadiija rasuulka ay ku yeelatay alayhi salaatu wassalaam waxay in badan ay ka sheekaynaysaa hooyadeena Aisha radiyallahu anha saameyntii ay nabiga ku yeelatay Khadiija iyo sida noloshiisii intuu u noolaa uu marna u hilmaamin waxyaalaha ay ka soo sheegtay waxa kamid ah in
khadiija oo geeriyootay oo maka ku aasan asagana madiina uu joogo in intuu naf ari uu gowraco oo uu goobeeyo inuu dhihi jiray waxaad u qaybisaanaa saaxiibada khadiija dumarkii khadiija waagii ay nooleed saaxiibada la ahaan jiray u qaybiya heelaha runtii ay ka waramayso hooyadeena ayay maaragtay kamid ahaan jirtay in hata saaxiibadii khadiija oo markaas sida uu u xariirin jiray waxaa la sheegaa in muxuu ahaa ay hooyadeena khadiija radiyallahu anha aan u jeeda hooyadeena Aisha ay soo waramaysaa sida uu xasuusan jiray ama aad uu sheegi jiray in maalin maalmaha kamida ay muxuu ahaa u timid hooyo ama qof weyn oo dumar ah oo wayeela oo la dhaho Jusaama magac noocaas wadata markay u timid uu garan waayay rasuulka markaas ay isku sheegtay waxay tiri waxaan ahay Jusaama al-Mazniya gabadha la dhaho ayaan ahay markaas uu yiri bal anta Hassana magacii buu ka bedelay markii koowaad ba Jusaama waxa la dhahaa Majassama qofka fahmada culus marka magacaas ay wadatay damiin amal markaas yiraahday adiga ma tihid Jasaama waxa tahay Hassana ayaa tahay oo dhaqanka rasuulka haduu qof magac xun ku arko uu ka bedel jiray magaca waxa marka la sheegaa inuu aad u soo dhaweeyay u wareystay saad ahaadeen muxuu ahaa kayfa kuntum ba'dana maxaa noo wakiin dambeeyay bal noloshiina ka warrama ilaa waqti baa dhaxdan maray marka aad u wareystay aad u soo dhaweeyay oo kayfa kuntum ba'dana kayfa ahwalukum wa aad marka u wareystay mar alla markii ay tagtay qofti waayeelka ahayd ayay waxay weydiisay hooyadeena Aisha ay tiray qoftan waayeelka ahayd sidan aad u soo dhaweynayso maxay ahayd markaas nabigu wuxuu ku jawaabay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kana ta'tina zaman khadija wa inna husna al-ahd min al-iman wuxuu yiraahdo qoftan aad arkaysid waxay noo iimaani jirtay waqtigii khadija ay nooleed inta uu ku xariirinayo waxa weeye khadija waagi ay nooleed ayay noo iimaan jirtay oo soo booqan jirtay in marka wanaagii la ilaaliyo oo la joogteeyo dadkii aad waa daris noqoteen aad meel ku jiiraanteen aad waa saaxiibteen in marka wanaagii ama intaad guursatay aad muxuu ahaa qadarka ama la kala geeriyooday wanaagna aad isku maaragtay inaad marka wanaagii aad joogtayso oo sii wado iimaanka ka mid tahay oo hadii anaga waad ogtiin waa iska waxa laga yaabaa inay Soomaalidaba ay qaarkooda ay ku mahmaahanba naag dhimatay naag bay sheegaysaa islaan ama naag dhimatay talow naag macayba af Soomaaliga iga raali ahada hadii ay tahay macnaha qofka xaas maxaan dhahaa qof dumar haday ka geeriyooto ragga ayaa ku mahmaaha wax macna leh ma aha tu kale un bay sheegaysaa oo nafaaskii un baa banaanaaday laakiin rasuulka kaleey salaatu wassalaam khadija waxa hataa ay ku adkaatay gadaasheed inuu guursado saan sheegnay marka wuxuu yiraahday gabadhan aad arkaysid duqdan waayeelka waxay noo iimaan jirtay kana ta'tina zamana khadija wa inna husna al-ahd min al-iman marka xilliga khadija ay nooleed ayay marka noo iimaan jirtay waxa kale oo Aisha radiyallahu anha ay leedahay maalin maalmaha kamida ayaa waxaana soo booqatay gabadha loo Hala bint Khuwaylid Hala waxay la dhalatay khadija radiyallahu anha mar allay markay guriga ay soo garaacday oo ay hadashay oo idin ay weydiisatay buu rasuulku wuxuu maqlay codkii Hala buu maqlay oo Hala codkeeda uu shabahayaa aad u shabahay walaasheeda khadija marka hadda khadija ma noolo rasuulka ma dhihi karo khadija miya ma dhihi karo khadija waa geeriyootay markaas intuu aad u farxay asagoo aan arkin qofta ay tahay yaa wuxuu yiraahday Allahumma Hala bint Khuwaylid ilaahu allah Hala ka dhig qofka hadlaya codkii ayaa wuxuu ku xasuustay hooyadeena khadija xaaskiisii qiimiga lahayd iyo marka ku xasuustay markaas yiraahday Allahumma Hala bint Khuwaylid ilaahu Hala ay noqoto qofka hadlayso qofta hadlayso waxa kale oo hooyadeena Aisha ka waramaysa radiyallahu anha in fatxu Makka markii nabiga Makka uu furtay magaaladiisii laga ceeriyay ama laga eriyay markuu dib u furtay in asaga oo saxaabadiisii waliba waaweynaa dhex jooga inay qof waayeela soo salaantay markay qoftii waayeelku u arkay soo salaantay ayuu saxaabadu wuxuu yiraahday aamusa markaas qoftii waayeelkii uu kacay halkaas bay fariisteen meel saxaabadii ka baxsan markaas ay qoftii waayeelkii baa u sheekaynaysaa waxay hooyadeena Aisha leedahay sheekadii dhaxdeeda rasuulka marna wuu qoslaa wuu farxaa marna wuu ooyaa
mar allaale markuu rasuulka ka soo tagay qoftii waayeelka ahayd ayaan weydiiyoon dhahay maxaa rasuul allow maxay ahayd qoftan markaas wuxuu yidhaahday waagii khadiija ay nooleed ayay noo imaan jirtay oo isku xirneen oo darisaan ahayd oo isnaqaaneen markaas waxay tiri maxaa dhacay marna waad oysaa marna waad qosashaa markaas wuxuu yidhaahday markaa iiga sheekayso berisamaadkii iyo khadiija waagii haddii khadiija ay fiyoobeed oo khadiija ay ahayd ay nooleed marka iiga sheekaysona waan farxaa marka khadiija geerideedii aan soo gaarona oo iiga sheekaysona waan ooya marka sidaas ayuu rasuulka ayadoo marka ay saxaabadii waaweynaa ay joogaan oo muxuu ahaa Abubakar uu meesh fadhiyo oo Umar uu fadhiyo ayaa marka intaas waqtiga ayada inta la eg ayuu ku qaatay inuu qofta waayeelka oo marka uu dhageysto asagoo ku xasuusanaya hay culimada leeyihiin aad runtii nabiga kaleey salaatu wassalaam farxadii uu ku farxay fatxu Makka in Makka oo laga eriyay in ilaahay dib gacantiisa ugu soo celiyay farxadii uu ku farxay ma aysan hilmaansiinin kalgacalkii iyo wanaagii khadiija marna muusan hilmaamin waxaa la sheegaaba fatxu Makka markii uu ku soo hoyday oo uu furtay oo saxaabada ay yiraahdeen rasuul allah guri inta loo diyaariyay in la martiqaado la rabo in uu yiraahdeen maya iska daaya meeshaad ay diyaariseen ee halka qabriga khadiija agteeda meesha khadiija ay qabrigeeda ku aasan tahay meel u dhow heemad iga sameeyo inuu qabrigaadii meel u dhow inta looga sameeyo heemo ama muxuu ahaa teendho loogu xiray inuu halkaa uu habeenkii baryay oo gurigii loo diyaariyey iyo martiqaadka intuu isaga soo tagay inuu marka halkaas uu habeenkii uu baryay waxaan u malaynayaa waqtigii kollaytu aadaankii baa maaragtay diyaara hooyadeena marka khadiija radiyallahu anha sidaas ayuu marka ay waxay ugu noqotay rasuulka alayhi salaatu wassalaam mid uu marna hilmaami waayay hataa markii ay geeriyootay kadib waxay sheegtaa hooyadeena Aisha radiyallahu anha inay nabiga ku canaanatay sheegidda faraha badneed uu sheegayay mar waqtiyaha kamida markii ay aad u aragtay asagoo aad u sheegaya inay ku canaanatay tii uu yahay muxuu ahaa ay tiray qof waayeel ah oo mar hore geeriyootay oo carrada wax ka waasay maxaad ka sheegaysaa ilaahay wuxuu kugu bedelay gabdha da'yar ayuu kugu bedelay nabiga aad buu carooday alayhi salaatu wassalaam wuxuuna u sheegay in qof ka wanaagsan uusan ilaahay ugu bedelin oo qof ka fiican khadiija uusan jirin waxyaalihii ay u soo qabatay wanaagga ahaa inay uu uga sheekeeyay markii ay rumaysay dadka dhan ay beeniyeen markay dadka dhan xoolahooda ay u diideen inay xoolaheedii ay ku taageertay dacwadiisa in ilaahay uu ubad ka siiyay meesha haweenkiisa kooda kalay aysan carruur u dhalin marka laga reebo Maariyatul Qibdiya radiyallahu anha aad buu u xanaaqay maanta ida aad buu rasuulka u dhibtay hadalkaas hooyada khadiijana way Aisha way ka xumaatay hadalka ay ku hadashay waxaana ay weydiisatay rasuulka inuu ilaahay dib dhaaf weydiyo waxay tiri arrintaa waan ka soo noqday rasuul allah ilaahay dib dhaaf weydi markaas wuxuu yiraahday ku weydin maayo ilaa adiga aad khadiija ilaahay dib dhaaf weydiiso ilaa adiga khadiija ilaahay aad dib dhaaf weydiiso kuma weydinaayo adiga marka hore khadiija ilaahay dib dhaaf weydi marka runtii hooyadeena khadiija siiradeeda ama taariikhdeeda waa taariikh mucjiza ayadoo dhanba oo qof ilaahay uu doortay nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam oo afdalul khalqi ahaa khalqi ilaahay abuuray midka ugu fadli badan ee ilaahay u doortay marka koowaad ba inay u noqoto xaaskii u horeeyay oo u guursado ilaahay ubad buu ka siiyay sida aan sheegnay ubad bay u dhashay rasuulka alayhi salaatu wassalaam
muddo muxuu ahaa dheer ayay isqabeen oo rasuulka uu qabay lama guursanin wax xaas kale ah lama guursanin hataa ma damcin in muxuu ahaa xaas kale uu guursado intii Khadiija oo nabiga la noolaa alayhi salaatu wassalaam waxaa markaa waqtiga oo iska gabagabaa waxaan hadalka ku bilaabay in aan ka warramayno dadkii jannada lagu bishaareeyay oo nool qaar kamid ah haddaba hooyadeena Khadiija waxay ahayd qoftii ugu horeysay oo muxuu ahaa jannada lagu bishaareeya maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa yimid Jibriil alayhi salaam nabigu u yimid asagoo nabiga la joogo ayaa marka Khadiija ayaa rasuulka soo aaday oo cunno iyo cabid u wata markaas Jibriil wuxuu yiraahday ya Muhammad ya Rasuulallah hadi Khadiija waa tana ayadoo waliba wado xoogaa kibis ama muxuu ahaa maraq ah ayadoo wado ayay soo socotaa markay ku imaatona rabbigeeda salaanka gaarsii rabbi baa soo salaamaya anigana igu salaam wa bashirha bi bayti fil janna waxaana ugu bishaareysaa guri jannada ku yaalo min qasab gurigaas oo luul ka samaysan ama lu'lu gurigaas oo la sakhaba fihi wala nasab wax buuqa ama wax tacaaba dal ama haraad uu saka jirin xadiiskaas marka wuxuu yahay waa bishaara hooyadeena Khadiija lagu bishaareeyay inay ahlu janno tahay cid ka horeysay ummadan kamidana ma jirto oo janno lagu bishaareeyay wala Abu Bakar baan ka horeynin wala Umar baan ka horeynin qof kale oo san ku neefla ummadana oo ayada horteeda kaga horeeyay in jannada lagu bishaareeyo ma jirin bishaaradeedana waxaa keenay Jibriil alayhi salaam waxaana ay runtii yaab noqotay in Ilaahay uu soo salaamay Rabbul Izza wal Jalal in uu hooyadeena Khadiija uu soo salaamay oo salaantaasna Abu Bakar oo Jibriil uu soo gaarsiiyay mar Allah leh markay hooyadeena Khadiija ay timid Jibriil waa iska tagay nabiga arrintii ilaah buu sheegay markaas waxay tiraaday markii la dhahay Ilaahay baa ku soo salaamaya waxay tiraaday inna Allaha huwa as-salaam hada qofka hadii uu ku salaamo assalaamu alaykum ku dhaho waxadeesa wa alaykum assalaam macnaheedu waxa way Ilaahay waxaad u weydiinaysaa nabadgeliya markaad u weydiinaysid qofkan waxaad oga baqaysaa shar inuu soo gaaro hada Ilaahay shar loogama baqa Ilaahay inuu shar soo gaaro dhibaato soo gaarto loogama baqaayo marka ma aysan dhihin Ilaahay dushiisa salaan ha ahaato ma dhihin nabadgeliya waxay tira inna Allahu huwa as-salaam Ilaahay asaga ma nabadgeliya wa minhu as-salaam nabadgeliyadana xaqiisa ka imaata wa ala Jibriil as-salaam laakiin Jibriil asaga doon way waa looga baqa dhibaato inay soo gaarto Jibriil marka asaga dushiisa nabadgeliya ha ahaato wa alayka ya Rasuulallah as-salaatu was-salaam adigana rasuulka Ilaahay taa tahay naxariista nabadgeliya dushaada ha ahaato halkaas runtii laga dareemin karo Khadiija aqliga ay qabtay iyo fahamkeeda sidoo ma aragtay uu ahaa marka hooyadeena Khadiija marka walaalayaal noocaas ay ahayd runtii waqtiga ayaan ugu yar waan rabay inta in ka badan inaan ka sii sheekayno waliba gabdhihii ay dhashay iyo muxuu ahaa guurkoodii iyo qaabkii markii dambe inaan wax uga darno halkaasaan marka insha Allah aan ku joojinaynaa waxa aan ugu talagalnay waa saan sheegnay waxyaalaha iimaanka ku ziyaado ayay kamid tahay dadka inay bartaan muxuu ahaa dadkii suubanaa waxyaalaha iimaanka ku ziyaadiyo culimada markay dadkii suubanaa siiradooda oo laga sheekeeyo oo la dhageysto ama laga sheekeeyo ama muxuu ahaa la barto marka iyo inaan ku da'anno oo haddaad gabar muslimada tahay dadkaas marka waa wanaagsan ee Ilaahay uu muxuu ahaa darajeeyay ayaa la rabaa marka inaad ku da'ato inaadan ku da'anin dad nolosha ka dhacay sida gabdho badan oo maanta runtii ay u malaynayaan in ay maaragtay in dadka lagu da'anayo ay tahay kuwa nolosha ka dhacay oo waad ogtiin walaalayaal waqti waxa lagu jiraa Ilaahay uu xaalka og yahay oo dhaqankii wanaagsanaa oo Soomaalidana uu guuray dhaqankii Soomaaliyeedna waa guuray diinna looma aabayeelayo marka in dhaqankeena suubanaa xishoodka iyo sariigta ku saleysnaa ee gabdhihii Soomaaliyeed ee sariigta lagu yaqaanay xishoodka lagu yaqaanay iyo diinteena Ilaahay uu nasiiyay sharafta leh inaan marka aan u turno oo waad aragteen isbedel badan baa dhacay waxaad arkaysaa gabdhaha intana af Soomaali ku hadlaya oo muuqaal Soomaali leh intana inay marka isa soo bandhigaan oo isa soo sawiraan baraha bulshada isa soo dhigaan oo la isku faanaya adiga intaad baneysay in ka badan baan aniga baneeyay lagu daratamaya adiga dhar baad xirneed ana ka qaawan in lagu daratamaya oo maanta marka sariigtii iyo xishoodkii iyo dhaqankii Soomaaliyeed ee sharafta lahaa iyo qiimiga lahaa iyo diintii sharafta lahayd midna inaan loo aabayeelaynin marka gabdhaha gaar ahaan gabdhaha da'da yar waxaan leeyahay
waxaas oo kale ha ku da'anina waxaad arkaysaana xaqiiqatan waa wax nolosha ka dhacay waa wax aan hataa sharaf ahayn inaad fiiriso haddaad ogaan lahayd qiimiga adiga aad joogto iyo qiimo darrada taa aad joogto maadan fiiriseen laakiin haddee maadaama af Soomaali ku hadlayso waxaad u malaynaysaa inay wax fiican tahay waa mid nolosha ka dhacday waa mid aan diin u aabayeelaynin waa mid aan waalid u aabayeelaynin oo waalidkeeda caasisay oo ku kufrisay oo ka carartay diinteedii ka carartay dhaqankii Soomaaliyeed ee sariigtii xishoodka ku salaysnaa ka carartay waa mid aan muxuu ahaa nolosha ka dhacday oo laga yaabo inay shaashad dhuuqayso oo sigaarka cabayso oo daroogada cunayso marka waxaas oo kale wax qiimi laha u malaynina dadka ku daashada mudan waa dadkan aan ka sheekaynay waa hooyadeena Khadiija iyo gabdhaha suubara hadii Ilaahay waqtiga noo saamaxo in badan aan ka sheekaynay doono kuwaas ka daasho mudan gaar ahaan hadda waxa la jooga walaalayaal saad ogtihiin waqti xasaasiya maashi doorashada la dhajiray baa maaragtay lagu jiraa waxaad moodaa doorashada in la dhahay dadka marka doorasho lagu jiro haddaad bulsho muslim tihiin waxba idin kama reebana wixii shalay xaraan ahaa maanta waa xalaal in gabar idhaah iyo wiilka is dhaxboodaan doorashada marka la joogo waa xalaal in la dhahay baad moodaa in hoonga la cuno oo rushwa la qaato oo nabigu yiri la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi midka hoongada bixinayo midka qaadanaya balacnad Ilaahay ku dhacdo doorashadu waxaan moodaa inay xalaal tahay in hoonga la qaato inay xalaal tahay in liis dhaxboodo in liis qaawiyo in gabadha af muggiis ay dhawaaqdo oo dhaantada iyo heesaha iyo muusigta inay xalaal tahay baad moodaa heer waxay gaartay dhaqan guurka ummadda ku dhacay in gabdhihii qiimiga badnaa ee sariirtii xishoodka lahaa ee waagay marka hore markay kula hadlayaan aan wajiga ku siini karin in inta la qaado rag intay qaadaan kor u qaadaan in waliba la liligo lagu ciyaaro sharafteedu sida loo liligo ayadoo la leeyahay waxay doonaysaa kursi in marka rag ay sida ku sameeyaan oo sharafteedu kuwa inkaarta ku dhacday oo iimaanka ka tagay oo ayaga naftooda aanan garanin qiimiga gabadha Soomaaliyeed ay joogto in marka sidaas lagu ciyaaro ayadoon ognahay bulshada aan la degan lahayn kayana la degan ee muslimka aan ahayn in ay waxay sameeyeen adigii muslimka ahayd ee islaamnimada sheeganaysay in marka waxa sameeyso gabdhihii kale ee aan muslimka ahayn bulshooyinka la nool qaar baa governor ah oo hadda gobolka la dhaho Kitui gabar baa governor ka la dhaho Charity Ngulu hadda kuwa hadda madaxweyne u socdaan gabar baa ku xignay wali wax la qaaday ma arkin adigii Soomaali ahayd ee diinan leeyahay nasidana sameynaysa gabdhaha waxay iska noqdeen wax lagu ciyaaro sida kubaddi madaxa in lagu ciyaaro marka dhaqan guurkaas jira waxaan markaa leenahay waxaas oo kale hal iska ilaaliyo ilaahina aan barino ilaahay xaq Allah na waafajiyo diintiina inaad barataan waqti badan ku bixisaan aan ka shaqeyno runtii ninka ilaahay u waafajiyo arinta waa arin wax qaali way in ilaahay uu ku waafajiyo inaad diintaas aad waqti ku bixiso idan ognahay dad badan oo anaga naga mid ah in xoogoodii iyo xoolahoodii iyo xikmadoodiiba ay adduun isku geeyeen oo daqiiqad kaalmeel u fadhi diin aan laga helaynin marka ilaahay baan maaragtay waafajiyay inaan kalimada jeedino wixii marka aan halaynayna hada waxa weeye nafteena shaytaan bay ka ahaadeen wixii aan hagaajinina waa tawfiiq min Allah ilaahay baa muxuu ahaa ayaan waafajiyay ilaahay hana hanuuniyo hidaayah hanuun Allah nasiyo Allahumma ij'alna hudatan muhtadin غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين إله كوبا هنوصن ودد كان أي كوه هنونان مقال كودي مقال كودي بلوه هنون إله نغير كوبا هنوصن دد كان صوب أو نقدين هنونا إله نغير إله دنوب تين ناف تي والد كان إله ناف بيت دين إله نحريصو مقتدين إله عافي مقنعين إله سو أروري إله دائرتين إله نو حفظي قبري ويل بإله نو إله نو حفظي gabdhaheena kuwa xishoodka iyo sariirta ku hana qaad ilaahu ka dhig kuwa muxuu sariirta iyo xishoodka ku barbaar ilaahu ka dhig ilaahu gabdhaheena shar iyo sheedaan ilaahu nooga ilaali ilaahu xumaan oo dhan nooga ilaali wiilasheena sidaas la mid ah balaashan daroogadan iyo muqaadaraadka ilaahu nooga ilaali kuwa waalidiintooda u dhow oo waalidiintooda baar ilaahu ka yeel ilaahu umuraheena sahal ilaahu nabadgelyo warta ilaahu nasi shar iyo sheedaan ilaahu naga xijaab qulubteen ilaahu isku dub ilaahu absidna waafaji ilaahu dambigana dhaaf صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين